Salaamu calaykum kusoo dhawaada Circle Time Magazine. Magacaygu waa Marian Didier. Waxaan ka shaqeeyaa Cultivate Learning. anigana magacayga waa Samiira Nuur. aad ayaan ugu faraxsanahay inaad nagala soo qayb gasheen barnaamijkan la dhaho Circle Time Magazine. Waa sax. Marka waxaan ku jirnaa qaybta taageerada dhaqanka wanaagsan. Qaybtan waxaan xooga saareynaa si macallimiinta loo baro xeelada ku xiran ka hortaga. Carruurta waxay lahaan doonaan horumar caafimaad leh xagga shucuurta marka xoogga la saaro taageerada dhaqanka wanaagsan. Gaar ahaan maanta waxaan ka shaqeyn doonaa sida loo fahmo carruurta dabeecadahooda. Macnaheeda waxaa waaye inaan fahmno carruurta waxay u baahan yihiin markuu ku aragtid dabeecadaha adag. Waxaan sidoo kale sharaxaynaa taageerada dabeecadaha wanaagsan farsamo ahaan iyo qaab ahaanba. Macallimiinta inay ku isticmaalaan deegaankooda si ay u taageeraan horumarka ku xiran caafimaadka shucuurta iyo isgaarsiinta. Kadibna waxaan la wadaagi doonaa xeelado badan oo ka hortag ah si carruurtoo dhan ka faa'iidaysan karaan. Tusaale ahaan, xeelada waxaa loo isticmaali karaa sida deegaankooda loo dhigo dabeecadaha wanaagsan, sharciyada fasalka ku xiran, kala guurka jadwalka, iyo taageero badan oo muuqaal ah. Fariin muhiim aan maanta baranay waa dabeecadahoo dhan aan carruurta ka aragno waa nooc ka mid ah isgaarsiinta ama siday carruurta u sheegi karaan macallimiintooda waxay u baahan yihiin. Taas waa sax. Tusaale ahaan, marka carruurta yar wada hadlayaan, waxaad ku arki kartaa wada hadalkooda qosol, oohin ama qeelo. Dhammaan dabeecadahaas waxay caadi u tahay carruurta yaryar inay ku dhaqmaan. haa maadaama shaqadeenu ay tahay waxbarasho waa inaan ka jawaabno dabeecadaha aan ka aragno carruurta iyo inaan ku taageerno shucuurtay dareemayaan. Marka dabeecadahaas oo dhan waxay leeyihiin foom ama ujeedo. Foomka waa sida dabeecadu u eg tahay. Tusaale ahaan, carruurta waxay ka arkaysaa qaar ooyaya ama qaar qeelanaya. haa kuwaas waa tusaalooyin wanaagsan oo foomka ah. Ujeedadana waa sababta uu ilmaha dabeecaddaas u sameynayo. Marka hore waxaa ka fikirtaa ilmaha miyuu nacay alaabtu ku ciyaarayo ama ma alaab cusub buu rabaa. Marka macallimiintu waxay baran karaan sida loo fiirsado iyo sida loo aqoonsado foomka ku xiran dabeecadaha ay ka arkaan carruurta si ay wax ugu qabtaan ujeedada. Hadda aan daawano tusaalooyinka qaarkood oo muuqaal ah. Are you gonna play patty cake? Patty cake, the baker's man. Bake me a cake as fast as you can. Roll it and pat it and prick it and mark it with a B. Put it in the oven for you and you and me. Yay! Maasha Allah, waa muuqaal wanaagsan. haa aad baa u jeclahay videogaas waa mid aad u fiican. Marka aan maqalno ereyga dabeecad mararka qaarkood isla markiiba waxaan ka fikirnaa dabeecad adag. Videoga aan hadda daawanay ma ahayn mid dabeecad adag aad ka arkaysid. Waxay ahayd gabadh yar oo isku dayaysa inay maclimadeeda tusto inay rabto heesta patty cake la dhaho inay la samayso. Waa sax. Muuqaalka waxaan ka aragnaa gabadh yar oo miiska qaraacayso oo buuq badan samaynayso. Foomku wuxuu yahay miiskay qaraacayso. Ujeedadana waxay tahay inay isku dayso inay soo jeediso maclimadeeda. haa macalimadeeda markay aragtay foomka gabadha yar waxay uga jawaabtay inay maqashay oo og tahay ciyaarta la dhaho patty cake inay rabto in lala ciyaaro. Taas waa tusaale wanaagsan sababta waxaa ka aragtaa xiriirka ka dhexeeya gabadha yar iyo maclimadeeda inuu xiriir adag yahay. Hadda waxaa ugu muhiimsan aan soo baranay waa inaan kulligeen leenahay dabeecado kala duwan. Dabeecadahaas aan leenahay waxay tusaysaa sidaan ula xiriirno dadka. Macallimiintu waxay ogaan karaan oo ka jawaabi karaan foomka iyo ujeedada ay ka arkaan carruurta dabeecadooda si ay u taageeraan shucuurtooda. Macallimiinta Soomaalida ahaan oo la shaqeeyo carruurta Soomaalida ah oona ku hadlo luqadda Soomaaliga. Waxaa muhiim ah in cilmi baarista loo sameeyo dhaqanka Soomaalida iyo dabeecadaha guud ee jira. haa tusaale ahaan macallin aan af Soomaaliga fahmin hadduu arko laba carruur oo ku hadlaya af Soomaali waxay u malayn karaan inay labada carruur wada murmayaan ama inay aad u qaylinayaan. Laakiin luqadda Soomaaliga ayaa si sare loogu hadlaa mararka qaarkood. Sababta luqadaha codadka kala duwan waxay u ekaan karaan inay gardaro tahay, laakiin dadka ku hadla af Soomaaliga uma aha. Waxaa kaloo muhiim ah inaanan la sixin dabeecadaha dhaqanka carruurta ama in looga baahdo inay isla wada mid noqdaan.
waa mas-uuliyadda macalinka inuu noqdo mid maskaxda ku haya oo ka warqaba dhaqamada kala duwan ee carruurta. hadda waxaan daawanaynaa muuqaal ah Dr. Kathleen oo ka imaatay University of Washington. waxay ka hadlaysaa qoraal iyada iyo asxaabteeda qoreen oo ku saabsan dabeecadaha adag. Teachers are faced with entire classrooms of children all sending different messages with their behavior, and it really helps to have a framework to support that. And that's why we are so excited to welcome Dr. Kathleen Artman-Meeker here from the University of Washington. Kathleen, you and some of your colleagues have written the position statement for challenging behavior for DEC. We're so excited for you to be here and tell us about it. Thank you. I'm so excited to be here too. Yes, my colleague Dr. Angel Fetting, Dr. Jessica Hardy, and I co-authored the paper for DEC. So Kathleen, what are positive behavior supports and what is important for teachers to know about the position statement? Yeah, that's a great question. So in many ways, positive behavior support is our field's best thinking about how we help children develop those really important social emotional skills and help families, educators, programs think about supporting the adult behaviors that support children's behaviors. So it's kind of, we like to think of it as a philosophy with feet. I love that. Philosophy with feet. It's the big ideas, it's what we say the research tells us is really important for kids and families and educators, but then it takes it down to when I'm trying to buckle a toddler into a car seat, or I'm trying to serve snack, or I'm trying to lead a story time, what are the actual practices that help make that successful and help children develop? So if a teacher is doing PBS, what does it look like? It's a great question. So PBS is really about building on the positive things that are already happening in every classroom. So it's not about stopping challenging behavior, actually. It's really about increasing or building up the social behaviors that we see in kids. So the positive behaviors, helping, sharing, labeling my emotions, those kind of things that I see, it's building those all up in the young kids. So it's a little different from what some of us may have experienced in our own elementary school or early childhood experiences, getting names on the board, maybe children being sent out in the hallway, those kinds of things. And some of the things that still are pretty common in some early childhood and early elementary programs, the behavior management systems where kids might flip a card for challenging behavior or move their clip to red. Those kinds of things, those strategies are really reactive and they may stop a behavior in the moment, but they don't teach a child anything new or different. So how PBS is different is we flip that situation a little bit. Instead of noticing the challenging behavior and children flipping cards for challenging behavior, now we take that time to notice the positive things we want to see in the classroom. So it might be a teacher who has a feeling proud and saying it loud board on the wall, and she just tacks a little sticker or a little dot up there, or a little note with a quick reminder of what happened in the classroom that day up on that board to recognize positive behaviors that happen in the classroom. And so this gives us a bigger picture view of behavior. It's a little bit more long term. It's about building the skills we want to keep seeing, and over time we get more and more of those behaviors. So it's not about stopping the challenging behavior. It's not just I want a child to stop grabbing toys. It's that I want a child to learn to say, can I play, or my turn, or please stop. And I can teach that. That's an actual skill I can help build. So once we start thinking about challenging behaviors as what's the other skill I could teach instead, it's really empowering to the adults. Well, and a teacher is spending a lot of energy trying to stop these challenging behaviors. So it's just kind of a different way to focus your energy in a more productive way that could have long-lasting effects, it sounds like. Yeah. You have me so motivated now. Right? I know. Thank you so much, Kathleen. Sure, thank you. This was a lot of fun. hadda markaan daawanay videoga Dr. Kathleen oo ka hadlaysa dabeecadaha adag ee carruurta sameeyaan, waxaan rabnaa inaan idinku soo dhaweyno provider Habaryar Zainab oo maanta nagala soo qayb galaysa. Habaryar Zainab waxay nagala hadlaysaa dabeecadaha adag ee ka aragtay carruurta barnaamijkeeda ku jira iyo sida ay u habaysay dabeecadahaas. Salaamu calaykum Habaryar macaan, ku soo dhawow. Maxay yihiin xeeladaha ugu wanaagsan aad ku isticmaasho deegaankaagii si aad ugu badbaadiso carruurta dabeecadaha adag? Assalaamu calaykum Maryam iyo Samiya, oo faraxsanahay inaan ka soo qayb galo. Xaaladda aan horay u isticmaalay waxa weeye in aan meel kasta oo carruurta ka ciyaarayaan
inaan calaamadiyo tirada ku ciyaari karto qaybtaas sababta carruurtu way ogaanayaan meelaha ay ku ciyaari karaan marka ay tahay tiridalaysaana waxay aqoonsanayaan sharciyada ku xiran meelaha lagu ciyaaro waxaan jeclahay inaan ku calaamadiyo erayo iyo sawiro muuqaal badan oo laga arki karo derbiga intaas waxaan u sameeyaa in carruurta yaryar ee aan weli wax aqrin karin inay arki karaan sawirada derbiga ku degsan oo ay gartaan halka ay tegi karaan iyo inta carruurda loogu talagalay meel kasta oo laga ciyaaro waa xeelad wanaagsan oo kugu caawinaysa in laga hortago carruur badan oo hal meel isku imaaday xeelado kale oo wanaagsan oo kugu caawinaya transitionska waa saacad loogu talagalay in la dhigo meel kasta ay carruurta ku ciyaarayaan si ay carruurta u ogaadaan markay tahay transition time sidee u kordhin kartaa akhlaaqda wanaagsan fasalka dhexdiisa si aad ugu caawiso carruurtu inay bartaan horumarka ku xiran dabeecadaha wanaagsan hal jiho oo lagu kordhin karo akhlaaqda wanaagsan ee fasalka dhexdiisa oo ah waxay tahay in macallimiintu u jeedaan dabeecadaha wanaagsan ee ilmuhu samaynayo oo aad u iclaamiso kadibna aad ku dhisto jawaab celin wanaagsan inaad ka bixiso waa muhiim tusaale ahaan inaad dhahdo cabdi waan jeclahay sida aad alaabta ula wadaagayso asxaabtayada saas baan ula dhaqannaa haa inaad si ula kaca u xoojiso dabeecadaha wanaagsan markay dhacaan ayaa muhiim u ah adiga iyo carruurta aad la shaqaysid waxay xoojinaysaa shuruucda fasalka dhexdiisa iyo tusaalooyinka ku xiran dabeecadaha wanaagsan markay carruurta samaynayaan si ay carruurta kalena ugu daydaan miyay jiraan meelo oo fasalka ka mid ah oo dabeecada adag mararka badan ka dhaca maxay yihiin meelahaas sidee baa u toosisaa haa waxaa jira meelo fasalka ka mid ah oo in badan dabeecadaha adag ay ka dhici karaan sida meesha blogska oo kale waa tusaale fiican sababta carruurtu waxay jecel yihiin inay ku ciyaaraan blogska mar walba waxay aadaan meeshaas blogska lagu ciyaaro waa meel ay si dhaqso ah carruurta kale u buuxsami karaan oo ku badan karaan haddii aadan lahayn sharciyo barnaamijkaaga meesha blogskaaga sharciyo u dejisan waxaan ka sameeyey sharciyo oo ah in 3 carruur keliya inay markasta ku ciyaari karaan markiiba haddii carruur badani ay rabaan inay ku ciyaaraan meesha blogska waxaan isticmaalaa saacad si ilmo kasta oo u heli karo 10 daqiiqo oo uu ku ciyaari karo sidaa dhammaan carruurta rabta inay ku ciyaaraan blogska ay ku ciyaari karaan sidoo kale waan hubiyaa in aan kala saaro meelaha blogska ah iyo meelaha aamusan ee kuwa dheeriga ah oo carruurta ay buugta ku akhrisan karaan ama ay ku nasan karaan ay ku maartay oo aamuskaanta u badan inay fadhiistaan ay doonayaan inay markaa ku nastaan wax ku akhristaan area haa inaad sharciyo fasalka ku haysatid waa muhiim tusaale ahaan in la kala saaro meelaha aamusan iyo meelaha buuq badan waa hab fiican oo lagaga hortago dabeecadaha adag ee ka dhici kara deegaankaaga sidoo kale waa muhiim in waqti gooni carruur kasta loo sameeyo si ay tooko u qaataan meelahay ku badan yihiin habre zaynab aad baa ugu mahadsantahay inaad maanta nagala soo qayb gashay oo aad nala wadaagtay xeeladaha wanaagsan aad ku isticmaashay programkaaga idinkaa mudan waan ku faraxsanahay inaan kala soo qayb galo nabadgelyo habre zaynab waxay noo sheegtay qaar ka mid ah xeeladaha wanaagsan ee ka hortag ah ee ku isticmaasho programkeeda haddana waxaan u gudbaynaa video aan daawanayno oo ku saabsan sida looga hortago dabeecadaha adag ee ka dhici kara deegaankaaga markuu isku qasan yahay videoga waxaa ka hadlaysa Jordan waxayna ka shaqaysaa jaamacadda Washington qaybta la dhaho Herring Center for Research and Training in Inclusive Education waxay kaga jirtaa qaybta la dhaho Professional Development Team waxayna baraysaa dhammaan wixii ku saabsan xeeladaha ka hortagga aad isku dayi kartaan inaad ku dartiin deegaankiina Jordan Tidingfong is here with us today. She's on the professional development team at the Herring Center for Research and Training in Inclusive Education. She's going to tell us all about prevention strategies. Hi, Jordan. Hi, guys. Thank you. So Thanks for happy you're having here me. today. Yes,
I'm excited to be here. I am excited because I get to talk about prevention strategies and just the times when we can get the most bang for our buck when we're trying to teach kids. And because a lot of the things we're trying to do is work around a challenging behavior, something that might come up, a meltdown, right? A lot of the time what ends up happening is that we try to teach at the peak, right? When a kid is having a full-on meltdown is when we're intervening, right? Not the best time, right? It's not really a time where we can learn. Worked for me. I can't teach at the peak. And I can't learn at the peak, right? So really it's all of those things leading up to the peak that are going to be when we want to do those preventative strategies in there. Excellent. So since we are in the prevention zone today, we have this very fun classroom model to demonstrate some environmental strategies that could help us be proactive about behaviors. Yeah. We want the environment to tell kids what to do, and we want it to help us tell kids what to do. Also just defining your areas as well, right? That's telling kids what to do, where to go. So having area rugs that can help define your space, like this is the spot where I'm gonna go read my books. Nice. Okay, great. So that's the book area, that's the boundary. Right, right. It's really about creating those boundaries that help kids know where to go and what to do, right? The environment's gonna tell us what to do. And I think another thing to think about with that is having those separate spaces of the quiet and maybe the louder spaces as well too, you know? So like our block area, maybe on this side away from where our reading and our writing area might be, right? Places that we're naturally going to have a little bit louder play and some quieter play, right? Okay. Yeah, Good. and continuing to help define those areas. Another thing you might do is just put down some tape on the ground to help define that area. Block area was always a high drama spot in my classroom, and have maybe things get knocked over because we're taking blocks off the shelf, dramatic play is right there, we're gonna stumble into it. Just having some clear boundaries that help define that space is really important, Right, so just tape on the floor. Just tape on the floor. Just using your bookshelves to help you define spaces, using area rugs, having a spot for your circle area is another great thing to do. So that helps kids know when it's time for circle, this is where I'm gonna go to, right? Okay, I love that. That's great. Now this looks a lot different than it did, right? This definitely has defined areas. I am a child, I'm coming in. There's not a lot of places for me to run because, you know, there's lots of fun areas to play in instead of. hadda waa waqtiga circle time magic. ها markay fasalkaaga ka tahay circle time waan ognahay inaad rabtid carruurta inay isdhegaystaan waxaad samayn kartaa qorshe intaanan la gaarin waqtiga circle time carruurtana waxaad tusi kartaa sawiro kala duwan oo tusaya sida loo isdhegaysto waxaad tusi kartaa siday u egyihiin carruurta waxaa ku dhehi kartaa in laga imaadaan siyaabo kala duwan oo ah sida loo isku dhegaysto marka macalin ahaan carruurta waa u sheegi kartaa markasta aad aragtid ilmo sameynaya dabeecaddaas waqtiga circle time waa waqti fiican oo la bari karo carruurta sharciga laga rabo iyo sida wax loo sameeyo Everybody has their own way of saying goodbye, huh? Do you need a tissue for your nose? Remember, the tissues are right here. And you can follow these steps. Are you going to go wave out the waving window, Parker? Children don't have the same sense of time that we have. You know, they're very much in the now, and then there's what just happened and what's going to happen next. That's their clock. You're so funny. My name's Deborah Walter, and I've been doing in-home licensed childcare since about 1990 when my son was first born, and I wanted to stay home with him. When I set up the room and set up the environment, I'm thinking about what's going to help every child be successful. But some of the things that I do, not every child's going to need those. An example would be the visual schedule. It's partly how our brains learn as we start out needing pictures before we have all the language, before we've built all the pathways, right? I have a child who has a high stress threshold, I would say, and separation is being a challenge for her. One of the things she finds comfort in is that visual schedule. And I noticed the other day that I wasn't really drawing much attention to it anymore.
most of the kids just, we all know what's happening. And I realized that this child really takes comfort in that schedule and will personally go over and move the clothespin when we transition from one time a day to the next. And so it's just great to know that that is there for her. You know, it's not like something that everybody has to do. It's just another tool in the class, and it's there. And some children may just need to look at it sometimes. But for that child, actually moving it has been such a great comfort to her. The routine's important, but I think that the ownership or the agency that the children feel about the routine has been really helpful this year. I feel like I am this tour guide, but really they're teaching me as much as I'm teaching them. And we're kind of on this adventure to learn about the world together. It's just the best job in the world, I think. السلام عليكم كسو دوادا قيبتا لدهو try it out قيبتن وحان إذا كسو دوينينا فاطمة آذن أو كتمادة إسكولك لدهو Hope Academy وحينا كتاهاي معلمات maanta waxayna baraysaa tusaale kala duwan oo aad carruurta ku taageeri karto shucuurtooda iyo si looga hortago dabeecadaha adag ee ka dhici kara fasalkaaga. Haye Abayo, maxaa ku bilaabaysaa? وعليكم السلام. maanta waxa ugu horreeyaan keenay waa saacado kala duwan. saacadahan waxay ku fiican yihiin carruurtu waxay tusaan waqtiga u hadhay markay ciyaarayaan ama wax kala sameynayaan. tusaale ahaan markay noqoto waqtiga hagaajista ilmaha waxaad u sii sheegi kartaa inay 5 daqiiqo hadhay siday ula socdaan saacadda. hab kaloo fiican oo loo isticmaali karo saacadda waa haddii jiraan alaab cusub ay carruurta badankooda rabaan inay hal mar ku wada ciyaaraan ama isticmaalaan. saacadda waxay ka caawinaysaa inay tago qaataan. saacadda ciidda ka samaysan marar badan baan ku arkay in lagu isticmaalo fasallada carruurta yaryar. haa saacadaha ciidda aad bay ugu fiican yihiin carruurta yaryar oo fahmi karayn 5 daqiiqo waxay tahay. saacadahan waxay carruurtu ka caawinayaan inay arkaan ciidda ka daadanaysa inay la mid tahay 5 daqiiqo. mid kale carruurta waaweyn la isticmaali kartid waa saacadda aad ka arki kartid tirada hoos u dhacaysa. iyagu waxay ugu jecel yihiin saacaddaas way qaylisaa mar kastay waqtiga lagu buuxiyo gaadho. dadka family childcare leh waxay hayaan carruur kala duwan aan daawana muuqaal ku saabsan si aad gurigaada ku samayn kartid saacadda ciidda ka samaysan. waxa kale maanta ka hadlayo waa pocket chart. waa jadwal aad ku isticmaali kartid fasalka oo carruurta tusaysa waxa ku xiga ay sameynayaan. tusaale ahaan saacadda markay saaran tahay 8:15 carruurta waxay og yihiin inay circle time tahay. kadibna way arki karaan inuu snack ku xigo. waxayna ku fiican tahay maalin kasta waad bedeli kartaa si carruurtu arkaan waxay sameynayaan maalintaas. sawirana waad ku dari kartaa. way fududahay in wax la dhex dhigo oo lala soo baxo. haa taasi waxa loo sameeyba. sida kale carruurtu u fahmi karaan jadwalka fasalka waxaad isticmaali kartaa istikarada xidigta. markastuu fasalku darsigiisa isbedelo carruurta waxaad ku dhihi kartaa inay bedelaan istikarka oo ay xidigta ku dhajiyaan darsiga aan ku wareegayno. haa waxa kale aad isticmaali kartid waa biin lagu dhajin karo jadwalka oo haddana laga saari karo. markasta aad meel kale u gudbaysaan carruurta waxay siinaysaa shaqo ay qabtaan markasta aad gudbaysaan. meelaha laga ciyaaro waxaad ku dhajin kartaa tirada carruurta loo ogol yahay. marka dambe ilmo kasta uu ogyahay inta carruur meesha loogu talagalay si looga hortago dhibaato iyo isqabsi. waa tusaalooyin fiican oo qof walba isticmaali karo. haa waxa ku xigaan haysto waxaa la dhahaa transition chart. chartku wuxuu ku fiican yahay inaad isticmaashid markay carruurta isku diyaarinayaan inay gurigooga tagaan. waa howl weyn ay carruurta ku wereeri karaan oo waqti dheerna qaata. markaa tani waxay ku caawinaysaa inuu jilciyo kala guurka.
ها waa muhiim in la baro carruurta sida loo isticmaalo waxyaabahan waqti fiican si ina carruurta bartid sida loo fahmo transition chartka saacadda ciidda iyo saacadda digitalka iyo jadwalka fasalka ku dhegsan sida loo raaco sidoo kale waa muhiim in carruurta la xasuusiyo sharciyadaas oona lagu dhaqmo maalin kasta dhammaan waxaa carruurta lagu taageero waxaad ka heli kartaa website-ka la dhaho Head Start Center for Inclusion waxaad ku soo printigaraysan kartaa waana isticmaali kartaa wax badan ayaa maanta na bartay mahadsanid Faadimo waan ku faraxsanahay inaan maanta naga soo qayb galo nabadgelyo hadda waxaan u gudbaynaa qaybta buugaagta mardiya baa maanta nagala soo qayb galaysa oo waxayna baraysaa sida loo taageero carruurta dabeecadaha adag leh salaamu calaykum mardiya aad baa ugu faraxsanahay inaad na tusta buugaag ku caawinayso macallimiinta inay ka hortagaan dabeecadaha adag iyo inay horumariyaan kuwa wanaagsan وعليكم السلام مريم وحان هايات دور بوغاغ oo ka caawiyo macallimiinta inay ka hadlaan dabeecadaha wanaagsan iyo inay carruurta wax ka bartaan sharciyada ku jira fasalkooda haye marka waa maxay buuga ugu horeeya aad noo hayso buuga ugu horeeya aan halkan ku haysto waxaa la dhahaa Know and Follow the Rules waa buug qayb ka mid ah buugaag kale oo isla socdaan oo la dhaho The Learning to Get Along series buugaagtani waxay ku fiican yihiin waxay ka hadlaan carruurta iyo shucuurtooda buuggan aad buu calaamadeynayaa sharciyada fasalka iyo sababta ay muhiim u yihiin in lagula dhaqmo haa buugaagtani waxay ku fiican yihiin in lagu haysto maktabadaada sax sidoo kale waxaan saari kartaa inta lagu jiro circle time si ay carruurta u bartaan sharciyada fasalka ku jiro iyo sida loo raaco waa run maryan buugga ku xiga waxaa la dhahaa Bella's Rules buuggaani wuxuu ku saabsan yahay gabar yar oo Bella la dhaho oo aan doonaynin inay raacdo wax sharci ah ilaa la siiyo eega marka la siiyo eegeeda bay garataa inay muhiim u tahay sharciyada la raaco markaad buugga sii akhrisid waxaad arkaysaa eegu inuu dhib gabadha yar uu keenayo laakiin Bella waxay ogaataa inay eega u baahan yahay sharciyo ugu dhaqmo ugu dambeyntii waxay bilowdaa inay fahamto sababta ay sharciyada muhiim u yihiin waan jeclahay buuggan sababta wuxuu tusayaa ilmo sameynayo sharciya sida aan ugu sameyno sharciyadaha fasalkeena haa waan jeclahay fikradahaas haddii aad buugga u akhrido carruurta ka hor intaanad sharciyo isla sameynin waxay ka caawin kartaa inay fahmaan sababta loo baahan yahay in fasalka sharciyo loo sameeyo waxay fahmi doonaan inuu eegu u baahan yahay sharciyo si uu dhibaato u gali karin marka wuxuu ka caawin doonaa carruurta inay fahmaan in sharciyadu qof walba u muhiim yahay si looga hortago dhibaatooyinka buugga saddexaad ee aan haysto waxaa la dhahaa Please Baby Please ilmaha buuggan ku jiro wuxuu sameeyaa dabeecado badan oo kala duwan waxaana ka arki doontaa waalidka iyagoo ilmaha marar badan ugu celcelinayo fadlan ha samayntaas maasha allah buuggan wuxuu u fiican yahay ilmaha yaryar sababtu buuggu wuxuu ku celcelinayaa dabeecadaha qaladka ah si ay u fahmaan dabeecadaha wanaagsan ee lagu dhaqmo haa carruurta yaryar waxay u baahan yihiin inay haystaan buugaag toos ah tusaale ahaan buugga ku xigo ee aan haysano waxaa la dhahaa Hands Are Not for Hitting buuggaani wuxuu u fiican yahay carruurta yaryar sababtu waxay si sax ah u fahmaan waxa aan looga baahnayn inay sameeyaan kadibna buuggan wuxuu siiyaa iyagoo tusaalooyin ay sameyn karaan aad bay u muhiim tahay inaad haysato buugaag loogu talagalay carruurta waaweyn iyo carruurta yaryar sababtu providerska waxay la shaqeeyaan carruur da' kala duwan marka waa muhiim inay carruurtu haystaan buugaag kala duwan si ay u fahmaan sharciyada fasalka iyo sida looga hortago dabeecadaha xun haa buuggan kale waxaa la dhahaa Leo Loves Baby Time
buuggan wuxuu ku saabsan yahay Leo oo tagayo maktabada markuu maqlo inay tahay circle time. Waa muhiim in xarunta lagala hadlo waxa schedule-ka maalintaas noqon doono. Waxaad samayn kartaa marka ay tahay circle time-ka ugu horeeyo subaxda. Markay xarunta ogaadaan waxa ku xigo ay samaynayaan si fiican bay dareemayaan. Waxay haysanayaan transition sahlan oo waxayna ka hortagayaan dhibaatooyinka dhici karo. maasha allah mardiye aad oo aad ba u saxsan tahay waad ku mahadsan tahay mardiye buugaag badan oo wanaagsan baa maantana tusteen waan ku faraxsanahay inaad ka hesheen buugaagta. Buugaagtan waa kuwa aad u wanaagsan in lagu daro maktabada, laakiin xusuusnow inaad xarunta buugaagta la isticmaashid si ay u fahmaan ugu dhaqmaan dabeecadaha wanaagsan iyo si ka hortagaan kuwa xun. waa runta mahadsanid mardiya adaa mudan. Nabadgelyo. nabadgelyo qaybta soo socota waxaa la dhahaa all about you waxay ku saabsan tahay sida loo bixiyo xeeladaha adkeysiga oo ku caawin kara shaqada aad maalin kasta u kala hadid waxaan daawan doonaa video oo Gail Joseph na barayso xeelado aad idinku gurigiina ku samayn kartiin. All right, our next segment is all about you. We save the best for last by taking time to offer some resiliency strategies that can help in your everyday work. Gail Joseph is here with some strategies to share with us. Hi, Gail. Hi, Dawn. Hi, Kristen. It's nice to be here again. We're so glad you're here. Oh, good. All right, so I have a great strategy. This is one that I use often. And so it really just starts with a question, which is, are you stuck at a red light? So it's an opportunity to kind of reflect on how you're thinking about certain situations in your life. Okay. So one of the ideas is that thoughts, feelings, and behaviors are all connected. So I know we know that intuitively, but we actually have a lot of research that also supports that idea. That the way that we're feeling about something can influence the way we're thinking about something, which can influence the way that we continue to feel about it, which might influence the way we behave. Okay. Right? So one thought to have is, am I thinking about this in a red light or a green light way? So let me think about a classroom example. Right. So we've all been classroom teachers. We've all had observations and some feedback from observations. So let's say that we just had an observation, maybe using some instrument that gave us some feedback, where our supervisor or our coach gave us some feedback, and some of it was positive, but some of it suggested there was room for improvement. All right? Okay. And so, great opportunity for red light or green light thinking. Right. Because if you're stuck at a red light, you might think, I'm a terrible teacher. Right. Feel Right? defeated. Yes, Right. exactly. Right. That's going to influence how you're going to feel. I'm feeling defeated, and how might you behave? Forget it. I'm not even going to try, right? I was trying my best, and I still got bad feedback, right? Whereas green light thinking might be, all right, so I did some things well, and I have some areas to improve. All right, so how might I feel? I might feel all right, right? I might feel a little bit better than I might be able to listen to that positive feedback a little bit more too, and really focus on that a little bit more than. because you're thinking in that and feeling a little bit more hopeful. So what did I do well? How can I get more of that going on? Right. And then how might I behave is maybe to ask for some support or reflect on and think about how I can improve. So again, very different behaviors, same situation prompted it, but it really is us thinking in a green light way. And I think this comes into play a lot when we're in the classroom and a child engages in some behavior that we find challenging, right? So we can be in the classroom and somebody can spit on our face. That's happened to me before. And that's an opportunity again for red light or green light thinking, right? So red light is, you know, this kid's a monster, this I'm is done here. disgusting, right? I'm mad, I'm angry, and you know, I'm gonna see if I can get this kid out of my classroom, right? That's a horrible situation. Right. Whereas green light could be, right,
that wasn't very pleasant, Right. but I think he might need some attention. Yeah. Or he might not want to do the task that I'm asking him to do, right? So how am I feeling? I'm feeling a little bit more in control in that situation. I'm feeling like I can be a little bit more helpful. And how might I behave is to adjust my strategies with that child. So, so red light, green light thinking. And every time now that you're driving in a car and you get stopped at a red light, just use that as an opportunity to reflect and think. Am I stuck at a red light with anything that's going on right now? Right. That's so helpful because then I have some hope, right? I can think of something that helps me be more resilient. That's right. And remembering that, I like how you said that thoughts are going to affect my behavior. And so my thinking is the first thing that I can kind of switch or think about, that easy visual of red light, green light thinking. Okay. Yes, exactly. And I can have some green light thinkers in my life. You can have some green, you can have green light thinkers. Surround yourself with green light thinkers. Right. That's great. hadda waxaan soo gaarnay dhammaadkii barnaamijkeena waxay aan maanta soo baranay waxay ku saabsanaayeen sida loo fahmo dabeecadaha kala duwan iyo in dabeecadahoo dhan inay yihiin nooc ka mid ah wada xiriirka. maasha allah waxaan sidoo kale baranay si caruurta lagu taageero dabeecadaha wanaagsan waxaana ka soo wada hadlay xeelado badan ay macallimiintu ku isticmaali karaan fasalkooda si ay u taageeraan horumarka shucuurta ilmaha. ugu dambeyntiina ka fikir dabeecadaha kala duwan ee dhaqamada kala duwan ku xiran iyo inaad wax badan ka barato dhaqanka carruurta ku jira fasalkaaga. nabadgeliyo waad ku mahadsantihiin inaad maanta nagala soo qayb gasheen. assalaamu calaykum. mac salaama.